Somaliland heshiis baa jiray Soomaaliya la gashay shirkadda DP World noqon ka mid ah leedin keenay heshiiskaasi wad baaskaraysan heshiis labaad baa haddana maalmo dhaweyto ka dhacay Dubai saddex geesood buu heshiiskii noqday Ethiopia soo gashay bal hadda hawshaasi bal ka war doorto heshiiska kan hore waan saxinay marka iminka waxa maanta dhaweyd la kala saxday waxay ahayd waa hirgelintiisi runtii si ballaaran baa heshiiska hadda heshiis weyn buu noqday si aad maqasheen saddex dawladood baa kala saxday Ethiopia DP World oo Imaaraadka iyo Somaliland saddex dawladood baa kala saxday saddexda dawladood ee kala saxday oo saddexduba ay ka tirsan yihiin gobolkan badda cas ay ka tirsan yihiin waxaad ogtihiin heshiiskaasu runtii anigu waxaan u arkaa heshiiskaasu inuu noqday heshiis taariikhi ah wax badanna ka bedelaya ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkan aynu ku noolahay Somaliland marka waxa maanta dawlad la kala saxday marka lagu soo dhawaado waxay hirgelintiisii bay ahayd oo golaha wakiilada waxaan markii hore sii aan saxnay waxa memorandum waxaan la yiraahdo memorandum of understanding oo isfaham guud heshiiskii isfahamkii guud ee la kala saxday baan aan saxnay waxaan maanta dawlad saddex dawladood kala saxdeen waxa weeyaan waa hirgelintii heshiiska sidaan xogta ku hayama warka ku hayana dhawaan waxay bilaabi doonaan shirkadda DP World dhowr mashruuc ay ka mid yihiin kordhintii dekedda iyo terminalkii containerada imanayeen iyo wadadii berbera corridor ee isku xidhaysay Somaliland iyo Ethiopia faa'iidada arinta culus waxa weeyaan in miisaanka lihi in dawladda saddex dawladood kala saxdana dawladda Ethiopia ay qayb ka noqoto dadka qaar baan maqlay laha maxaa loo siiyay Ethiopia qaybta suuqan dekedda berbera meesha ku socda waa suuqa Ethiopia waxaan heshiiska DP World loola galayaa iyo meesha aynu wax ku wadna iyo suuqa wax geynaysa waa Ethiopia dekeddu inaguna sidaynu ognahay ma nihiin dal aqoonsaday inkastoo dal madax bannaanahay haddana aqoonsi caalamka kama haysano arrin weyn weeye inay laba dawladood oo la aqoonsan yahay heshiiska qayb ka ahaadaan dekeddana qayb ka ahaadaan oo sheer ku yeeshaan marka aniga inay Ethiopia wax ku yeelato dekedda berbera oo suuqa lagu wada aad baan soo dhaweynay way hadii laga tago heshiiska marka laga tago dadka qaar baa waxay leeyihiin maadaama Somaliland la aqoonsanin oo qayb Soomaaliya kamid ah leeyahay way tahay hadda waxa jirta in dadka qaar ay leeyihiin heshiiskaasi waxa saxeexday dawladda Ethiopia bal hadda ka war ma dawladda Ethiopia ma saxeexin markii horena waxay lahaayeen dadku marba waxay doonaan bay iska oranayaan markii horena waxay lahaayeen waxay iyadoo heshiiska loo fadhiyo Imaaraadka oo la kala saxeexanaya bay lahaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya baa saxeexaya wax ka saxeexay bay dadku lahaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo jooga Imaaraadka baa agtiisa lagu saxeexay heshiiska way saddex dawlad kala saxeexay waxa laga weydiiyaanay jirin heshiiska markaa isaga iyadoo dadku leeyihiin isaga saxeexay markhaati furay oo Muqdisho ka qayliyay waxay qayl ka baxayna weydikii maqlayay marka tanna Ethiopia ma saxeexin saddex waxaan ku leeyahay saddex dhinac ayaa kala saxeexday Somaliland DP World Imaaraadka iyo Ethiopia saddexdaas kala saxeexday sababta Ethiopia ay meesha u soo gashayna waxa weeyaan wataan hore u sharaxay marka heshiiska inagu dekedda waa dekedda berbera inaga maamulayna heshiiska inagu intayna ku lahayn iyo inta ugu weyn iyo ogolaanshaheeda iyo in heshiisku meel maro dawladda Somaliland baa saxeexday Soomaaliya naga ma hadana oo waa kuwa marba ina daba socda waxay dhaaheen golihii baarlamaanka la horgeeyay mooshin ka dhanabay keeneen inay ka doodaan maadaama iyagu dalkii Soomaaliya anaga haysanay leeyihiin ay ku qaraabanayaan ma laga saameyn intee lag bay ku yeelan kartaa horta waxana waxa weeyaan dawladda Soomaaliya iyo ninka ra'iisul wasaaraha ka qaylinaya ee Muqdisho ka qaylinaya heshiiska markii la saxeexayay Imaaraadku joogay heshiiska la saxeexayay hadii wax laga weydiinay markaas la weydiin lahaa heshiiskuna iminka ka ballaaran Somaliland oo qura saddex dawladood baa wada saxeexday iyaga difaacanaya isaga ilaashanaya mooshiyeeru baarlamaankooda geeya waxalaale wuxuu ka taraya ma jiro maamulan meel loo socon hadduu wax ka tarayo ninka ra'iisul wasaaraha daadar Imaaraadku ku sugnaa
الداتا هشيس كلا كلا صحيح عليه إمارات كسرنا مركز واحد كتر لها هذا واحد كتر أيه إن دي إنه أفكار كشكتو واحد بري هراء إلى هذا إن السومالي أنا جن هو استماده ونسك هذا الكلام دور مويانه لكن براكتيكالي السومالي لأن مهور استماده وده المذهب بنان حدوده هذا له ما ملك هذا له إن يروس خامين نقوم له ما شرتها هشيس قبل وبيسي وحتى مدرنا كم دقلاء وكلا إنه صحيح حسن الشيخ محمود مدحوينه ولا دور الفدرال أنا قلت وركا ما هيو لا الواحد كسيحي وحن وركا وحن قاضنا ياون ما نتابع والله حسن الشيخ محمود الصوت هذه ما نتدويدنا سيدان هرب شيء وحلا لها رئيس وزراء حسن خير هشيسك واحد صحيحية هشيسك واحد صحيحية طبعا مركو مقدسة كده هشيسك وقاعد هشيسك أكتي سين لو صحيح وده ماله دوبل لو صحيح مقدسة مركو كده سيا كبر خاتي فروك قيلي مركا تها هورنا ترى ينتي لو حسن خير ومن سك قادر يعني تاير ومن هاي حكتها هدي دوك من الله هاي ومالك صحيح هايين عده هاي سادي ويكين الهاي حتى هورنا كم تشيرنا سيدا نو بيسكاي ما أنت لو إنه حوجيستيو هشيس حوجبون غض الدولة يتوبين قبل سعادة أنا وحن قبل قيب تقوم مهم سنة وقيبتها يتوبيا أي ساحدي دكدي وحكي لا عشان نصو سوق لو جناح سكينة يا ملو يبكيني ويدي هاي أنا سنة من سنة